waxyaabaha uu ka dhawaajinaya Soomaalida lagu habsaday waa imtixaanka saa uga bixi lahaydna waa feelgareenne anaga dad shisheeya way taraagareen in Soomaali la caawiyo haddaa xasuustaan ma aqaan laakiin way ku feelgareeyeen marka anaga Soomaali haddaan nahay dhexdeenna inaan iska hagaajinaa ugu muhiimsan qofka walaalka hadduu saxan yahay qabo hadduu qaldan yahay ka qabo hadduu saxan yahay sabood garee laakiin haddii Soomaaligii qaldana aad qaladka ku raacdo subax hagaagaya ma lahan marka Afrika marka la yidhaaho wadamada dagaal ka dhaca waa run laakiin waxaa caawiye waxa waaye ayagana way fahmeen waxaan ay ku jiraan inaysan waxba u taraynin way ka soo noqdeen laakiin annaga Soomaali haddaan nahay dhibkan haysta ugu weyn waxa waaye dad muslimiin aan nahay annagiyaa waxaa la rabaa qofkii saxanna inaan taageerno qofkii qaldanna aan ka soo horjeesano 2026 xamar dagaal ka dhacay oo dada weerarayay ninka ragga Soomaalida waxay tahdaa walaalo waxay ku dhaanta ma lahan in dadkan la isu keeno la heshiisiiyo qofka haddaa qalad ku artidna walaalka ha ahaad aad qaban kartid laakiin hadduu qofkii qaladka sameynaya aad qaban karin aad ku raacaysid Soomaaliya ma hagaagayso qaladkiyaa soconaya maalin meesha kasii daranaa maraynaa marka siyaasad markay noqotona Soomaaliya siyaasad ma lahan waxa waxay ku bedgelasan yihiin qabyaalad qabiilkii hadduu qaldan yahay iyo hadduu saxan yahay haddaan ku raaco wax hagaagaya ma lahan qabiilkana sidoo kale u sameynaa qof walba sidoo kale u sameynaa macnaha nin kaligiis meel ka soo baxay ma jiro inuu meel buu macsiganaya laakiin reality jirtaa waxay tahay Soomaaliya 40 sano qofka jira maanta dowladdu waxay ku dhacdaa asagoo 5 sano jiro iskuul wili aan aadinay ku dhacdo qabti maanta ma laga dhicin karaa system iyo nidaam iyo dowladda ka cabso ma laga dhicin karaa waa maya maxaa looga dhicin karaa weligiis maba la barinba weligiis ma arkin qofkii wixii kala dambeyn iyo sidaa waddanka hadda aan joogno kale anaga Mareykan aan joognaa qofku ceersanaya mala gaari ma qadar dhiga tiidaa lagu siinaa isbiil limidka dhaafay tiidaa lagu siinaa adaa cabsanaya marka sharciga ka cabsanaya marka Soomaaliya dhibaatada ugu badan haysto dadka qurba joogta hab iska joogan qurbahooda dadka waddanka jooga noo daran qofka maanta dhigi kara Soomaaliga ah waddankaygaan tagaya system ka jira waxaan ku xisaabtamayaa hotelka online ka goosanaya ama taqaana gaarigaan kireysanaya oo gaari aan xaqiiqa ma horeyaan wadanaya ma jirto maxaa keenay systemkii dhan ma diyaarsana Soomaaliya waxay noqotay waddanka kaliya ee maanta ku jira wax loo chapter 7 means waddankaas waxaa xukumo international community ga xukunta oo bilashooda bixiyo macnaha nin siyaasi ama ra'iisul wasaare noqo madaxweyne noqo wasiir noqo waddanka resource ma lahan waddanka waddan isku filnaansho ah ma ahan waddanka soo burburay 30 sano ama 35 sano soo dhaafay waxaan ku jirnaa mataqaanaa chapter 7 nin walbana wuxuu rabaa chapter 7 ka asagoo ku jiro inuu haddana xoog sii isticmaalo ma dhacays marka waxaa loo baahan yahay annaga Soomaali haddaan nahay waa in annaga naga imaataa in waddanka hagaago wixii wanaagsan aan isku raacno oo dadka loo caqli celiyo dadka wax la baro Soomaaliya waa waddanka wadamada Afrika East Africa waddan lagu haysta xagga xeebta number 1 anaga ah shore markay noqoto si shorka marka waddanka kan la fiiriyo waa waddanka long shore laakiin dadka heshiina niman waxay u galeen mataqaanaa Kenya niman waxay u galeen Yahuudi niman kale waxay rabaan inay Ethiopia galaan marka Soomaaliya ayadii dhexdeedii iyo kala cararaysa annaga Soomaali haddaan nahay adduunka waxa uga noqonaysaan waxa waaye in loo ceersanayo annaga isku dhigna waxaan annaga afkeena ma xirano waddanka imaano ma isgaagaabino banaankan soo baxayna annaga yaa buuqayna annaga yaa ishaysana waa ogay doorashadii ka dhacaysa Minneapolis America loo tartamay wiil Soomaaliya ininkoo fiigaaba iska hor imaaday waa loo kala raacay ma la fiirin magaca guud annaga dan maxaa noogu jirto war ninkan haddaad taageerin isaga aamus haddaad boos ku haysin isaga aamus waa garan kari weeyday marka ceeb waxaa noogu fulan Soomaali haddaan nahay meel baa naga iska soo horjeedno dalka ha noqoto ama dibadda ha noqoto marka inta magaca Soomaalinimada la isaga imaanayo
oo la fahmayo qadiyadda Soomaalinimada waxay tahay qofka walaalkaana u ogolow aniga maanta hadduu nin cadaan boos orda inin Soomaali ah Soomaaligan taageera haddaan raba vote gelin laakiin haddii laba nin oo Soomaali iska soo horbaxdo waa inaan saaraa miisaanka war ninkan maxaan ku doortaa ama ninkan maxaan ku doortaa ninkan muxuu ii soo bandhigay ninkan muxuu ii soo bandhigay waa inaan dhihi karnaa laakiin haddaysan ahayn oo la dhaha yuu yahay ya waa arrin mataqaanaa ilaa hadda naga harin 40 sana meeshii taagannahay dadkaa Soomaaliya jooga ha loo naxo waddanka dadka jooga ha loo naxo dadka qurbaha jooga ha is caawiyaan waddanka aan ka wallahi haddii Soomaaliya maanta Israaciil lahayd door laga qaado Soomaalida qurbaha joogta waddankeena ku filan lahaa chapter 7 xataa looma baahnaadeen chapter 7 looma baahnaadeen waddanka intaas lacag soo gashay aniga xamar waxaan tagay 2023 aan tagay dadka baahan iyo dadka dhargan waxaa badan dadka baahanaa badan dadka waxaysan waxaa badan dadka waxaysanina badan saasay tahayna dadka waa iska nool yihiin macnaha anaga Soomaali haddaan nahay waxay ka bilaabataa dadka wax bartay in la hadlo oo ninka wax bartay inuu dhaho waddankan anaa wax ka qabanaya waxaana qaldan aan saxno dadka kale ay ku taageeraan haddii baan bal dhahay mataqaana qabiil Soomaaliya Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam intii la soo diriyay Quraysh waxay isu dagaalayeen Aws iyo Khasraj nabiga intuu imaaday diinta u keenay oo diinta mataqaana ayaga daraadid ay ku habasneen maanta Soomaaliya ma soo baxay nabi ma soo socdo qabyaaladda in laga tagana is very crucial very tough waxa looga bixi karaa kaliya dadka in wax la baro dadka ay wax bartaan ee qofka ay ku qiimeeyaan maxaa soo baratay maxaa taqaanaa maxaa qaban kartaa what's your qualification intee soo martay laakiin haddii qofkii la dhahayo ree hebel waay 40 sano ree hebel waxaa qaban la'yiin ree hebelow waxaa haysiin malahan ama waxaa artid ahaaw ama waxaa artid samee haddaada waddankii inta jaanis ku heshay aad waddankii dadka hogaamin karin dadka isu keeni karin ree hebel maalma ree hebel aan taagnaanayna 40 sano hadda 40 sano cunuga maanta jiraan ku dhahay system iyo kala dambeyn ma arkin marka Soomaali haddaan nahay aan isabood galeyno maanta aan iska qabano wanaagana isku taageerno intaas aan uga baxayaa kulliina waa salaamantiin istaageerna kulaha waa mahadsantahay maanka maxkamadda shuuta waxaa la keenay askari wiil ku dilay sab heerkaasaa maraynaa sab xabaddiiu furay wiil yariisa oo 29 sano jir ah kaw heer Soomaaliya bariisa isku dilayaan adiga sheekaade waa askari dhan oo qaran hadda maxkamaddu saaraya waxaa la soo geliya 4 sac ka hor maxkamadda shuutu saaraya ama reeso dhow waxaas ani waxa iska sheegay ma aha maxkamadda shuutu saaran yahay YouTube-ka ku qora oo aad daawanaysaan askari sab darteed u dilay wiil yar oo aan qaan gaarin weli kiiskan dhammaysanaa waa mudaada kaga soo baxaa macalinka kaga qaada meeshaas abtiliibaan hadduu dhameeyo horta waan idin salaamayaa maxamedow marta inaad heshid maadaama marti aan noo tahay kelmad baan ku darsanahaa ku darso kugu soo dhaweynayna ku socodkaas okay horta maanka wuu hadlay horta kelmad wanaagsan baa ka hadashay abtiliibaanna kelmad buu keenay horta dhimashadu samada ka qorataa wixii la isdilaayay wixii kalaba qadarka ilaahay cidna celin karta male laakiin wax walba sabab bay leeyihiin waayo waxa hadda America bay ka dhacdaa 24 saac bidil ka dhaca oo dhimasho ka dhacda oo maalaa yacni la isku dilaa runta markii la isku sheego horta dalkeenu ma xuma dhulka ma xuma ee dadkii baa xumaada qaar ka mid ah dadkuna ma wada xuma runta markii la isku sheego anigu reality markaan indhaha ku eegay dadka dhibaatada ugu hayo reality dalka ku hayo waa dadka lacagaha soo diro markay noqoto qabiilka markay noqoto waa dadka qurbaha dadka wax diro reality markii la isku sheego waa odayaasha dalkeenu wax haysto laba shay weey oday dhaqameed weey kow oo markii qofkii la dilo dhahayo mag baan qaadanayaa magtina ilmihi aqoonta xaq u lahaa aan la siinin markii 10 meel loo qaybiyo meel kamid ah la siinayo sagaalkii kalena xeer hawiye xeer daarood
iyo odayaashii dhaqanka qabiilkii waxaas ay qaadanayaan markii koowaad labo dadka qurbihii joogay ama Mareykan ha joogo ama Canada ha joogo ama Yurub ha joogo meel walba joogo markay dhibaato dhacdo intay soo ordaan lacag iska soo aruuriyaan ee hubka ku gadaayo oo raashinka ku gadaayo oo dadkan sabood gareynaya way dadkan hadday waayaan wax sabood gareeyo oo hub u gado oo wax u gado cid wallahi isdin lahayd ma leh runta markii la isku sheego meesha wax ka xuntaa waa dadka qurbaha maaha dadka joogo laba isku jiraan waa nin siyaasi ah oo dadka maatada ku tunto iyo oday dhaqameed oo intii maatada kale u afduuban tahay oo siyaasiga lacag siinayo markii reality-ga laga hadlo true sida saxda qofkii wax baaro uu ogaado marka maanta abtiliibaan haddii runta laga hadlo inta qof uu yaqaano ama inta jeer oo la soo wacay oo la yirniyo waxaana ka rabnaa hadduu isaga diido waa laga yaabaa oo la yirniyo tolkiiba saana oo waxba laga rabaa ama kana hadduu maalinta diido waa gaar anigu ogaa Allah walaam laakiin hadduu bixiyay eedaas waxa uu ku leeyahay kan maxkamadda la geeyay oo qofka dilay eedaas waxa uu ku leeyahay dadka qurbaha marka ciladu waxay naga timaaday qurbeel noo timi ee maanta dadka hadday wada joognaayeen dalka oo inta qurbaha joogta dalka lagu soo celin lahaa qof walba wuxuu dhinaanyo cidna nooma maqna ceelna nooma maqna warniyo dalkeena ma dhisannaa oo badeena wax ma ka soo saarannaa oo beerayna ma qodannaa sababtoo lacag kale meel nagama soo gasho dalka dhan waxa biilo waa qurbaha oo wax siiyo hadday hub noqoto hadday qabiil noqoto hadday wax kasta noqoto iyaga qaabilsan marka waxaan ka wadaa ereyga runta markii la isku sheego meel kale lagama haysto xaq ilaahay baan laga haystaa xaqiiqda marka isku sheego qof maantay walaalkiis aan u ogolayn nolosha uu nool yahay ama halka doorar uu haysto sidee ku helay mu ani wax weydiiyo wallahi billahi tullahi dad waxaan arkay dhahayo qof inta soo wacaan wareer dhisay u nooshay oo qurbaha ku nool markaas wuxuu ku jawaabay ilaahayga adiga nolosha ku siiyay oo uurka hooyada 9 bilood bil ku irsaaqay ba adduunyada jooga anna igu irsaaqayo buu yiri markaas ali oo sida wax ku hesha markii qof dadka qurbaha waxay aaminsan yihiin haddii ay iyagu ay wax bixiyaan mooye si kale dadku ma noolaan karaan haddii iyaga hubka iyo wax walba iyo munaafaqada ay sameyn maba joogi karaanba sababta dadka depression ba ku dhacay reality markaas ku sheegno raallah hada inaka nimaagayo laakiin reality markaas ku sheegno sida guud dadkii daawanayna way dareemi karaan marka intaas aan leeyahay ku socod macallinka nin walba siba qayb buu ka taabtay maanka wax fiican oo sheegay maasha Allah maxamed adigane abtiliibaanne wax fiican oo sheegay oglana sida uu sheegay waaye laakiin Soomaali haddaan nahay asal dad fiican manhin kulli Soomaalida oo dhan every qabiil every Somali sababtana waa idin sheegaya waxaa laga yaabaa wadaninimo iyo sharaf aan leenahay ma jirto waxaa laga yaabaa magaalooyinka magaalo ka mid ah ama gobolka ama magaalo madaxda waa la isku dagaalaa meeshaas bay ku jiraan sartaas la dhisay oo dawladda ay lahayd wax ka fikiraya male sarta iyo kuwa ku jiro dhan dhulka dhigaa lagu leeyahay marka wixii waa iska burburinaa isuma naxno hadda waxaa arkaysaa qofku dhaha war ninkii kuwii talin jira waa ku leeyahay war nin oo cunug oo bam ah oo cirka maraayo oo aabihiis wuxuu ahaa shalay ahayd isaga ayaa waxaa leeyahay isagoo gaari gacan lagu wadaa la geenaa waa ninkiyaa dhalaa la dhahaa xaqdarra waa wiil wax soo bartay oo very markuu hadlayo very articulate ah oo hadalka soo u dhigaayo iyo balaaqada ka muuqata aad u jeedin war adiga yaa tahay adiga maba lagu yaqaana meeshaas kaga bax ninkaana la yaqaanaa markaasuu leeyahay kii doqonkii ahayo aabihiis ninka fiicana malay maqlaha anigu waxaan nahay ina saas waan idin salaamay aabbahay baa taqaanaana malaya waa garanaysaa soo maaha aniga dad siyaasiyan ka soo jeeda haddee waa idin salaama keliyu leeyahay hala doortay ku leeyihin bal ilaahay ka warrama ani waa arkay indhahaygaan kusoo arkay nin walba aqligiisa iyo waarkino iyo awooddiisa iyo wuxuu dadka iyo arligaan la yimaada in lagu doortaa fiican aniga waxaa aaminsanahay ninka beel walba oo ilaa beeleed kalama harayna inta talentiga ah haddii uu lafta ugu yar oo ka dhashay hadduu faqiir yahay hadduu talent yahay inuu kursigaas uu isaga leeyahay laakiin weli Soomaalideenna kuwa Soomaali jooga xataa ma aaminsano marka waxaa la yidhi hal xaarana ninka xalaala ma dhasho iyaga waxay ku leeyahay war ninkaan lama yaqaane ninkaan adeerkay ninkaas qabiilkeen la yaqaan kaasaan dooranaynaa war adiga wiilkan shalayba kaas maroo soo baxay maxaa u diidaysaa kan haddaad tiraahdo wuxuu kuu sheegay ma arkaysid
waa ibtilana haysato midda labaad dad waxaan nahay calanka marka la saaro soomaaliya toosta madaxweyne marka la arko wallahi ani wadanka waa jeclahay soomaaliya isku tiirsadaan wada dhaha albaabka marka laga baxo xan iyo balaayo waa la iscayna waryaa ummadda kale waxay aaminsan yihiin inay waddan ay leeyihiin iyo inay dhiig wadaninimo ku jiro soomaalida waxa ku jiro qofka haddaad tirahdid warniyow waddankeena dhibaato ku jira soomaali ahaan intaa soo aruurin aan dagaalano annagoo qabiil walba ah maya laakiin qabiil haddii la yirahdo ninkaas qori u qaadana qabiilkiyaga difaacayo ku leh haddii la yirahdo diinta aan difaacno oo meeshaan niman gaalaa soo galay oo dhibaato nagu haya niman khawaariija soo galay maya idinka beeshiin ciidankiina soo saara lagu leeyahay marka qaarkood wallahi dadka leaderska ahna waxaa waaye marka qaarkood markay dadka runta u sheegaan oo ay runta ay ku timaado wixii dadkii ilaa basic systemkii waxaa lagu soo dhisay wax xun marka wixii ma soconayaan dad fiicanna ma nihin dad waxaan nahay intaas isfiirsanaya habeen iyo maalin qofka qof kale fiirina ku mashquulaya soomaalida meel walba ay tagaan ayaga isku mashquulsan ummad kaleeto adduunka nala mid ah ma jirto ummad dharkay gashanaysa dharka dad kale ku mashquulsan ka waranay iska badaa wax kaleete marka ma nihin dad fiican annaga ma garat ninaa qofaa wuxuu leeyahay nin oo tuug oo qabiilkiisa ah oo weligiis ah oo dadka dhici jiray ayuu leeyahay in adeerkay qor u soo qaatay waa difaaca markuu dhinta waxaa leeyahay ninkaa ma taqaanaa kii uu dhintaa dhahay may maliibaanayaasha lagu liibaan waayu leeyahay maliibaanayaasha lagu liibaan marka haddii shacabkii oo dhan ay yihiin kuwa masaakiinta aan maliibaanayaasha lagu liibaano kuwa kalena ay tuugo noqdeen hadduu weer xaa ka noqday arrin maxaa u yaala wax noo yaala male shacabkeena waa realitiga waa marka soomaalinimada iyo mabda'an laga hadlaayo mabda'an laga hadlaayo wuxuu yimaadaa markay ummadda bisishahay ummad bisil ma nihin fiiri meeshaanaa nimid minnesota la joogaa waxaa arkaysaa rufyaan looma baahno ummadda kaleeto dhan hal dukaan oo EBT ah oo intaan joogay aniga magaaladeeda Addis Ababa la yiraahdo waa magaalada Etoobiyaanka ugu badan waa America dhan VA degan tahay hal dukaan oo lagu qabtay EBT-ga waxaa la sheegaya ma jirto Washington ku leeyihiin Virginia ku leeyihiin Maryland ku leeyihiin Los Angeles ku leeyihiin hal qof oo la qabto ma meeqay ku joogaan meeshaan America meeqay ku joogaan millions ku joogaan 10 times 20 times more than Somalis inta Soomaalida ay iska shifto isma ka shifin Isbaanishka isma sheego indhayrs isma sheegto wax is sheego Hindiga isma sheegto Soomaalideenaan oo afka ka wada falan oo ayaga la isku isticmaalayo oo aanan ahayn si qofkaana mutaar ahaa thank you marka ummad waxaan nahay ummad isqarxinayso ayaga isku naxaynin aan aadaab lahayn qofka isagoo reer baadiyo raba inuu wax noqdo exactly kan America joogo reer baadiyaha raba inuu America dhaco ka Soomaaliya joogo reer baadiyaha marka ka warrama ilma adeeryaalo aniga waxyaabaan ku fikiraa jiro wallahi haddaan qaldanahayna buud ka soo baxa waa dhigi kartiin walaalayatiin kan America joogo reer baadiyaha raba inuu dhaco system America jiro markaasuu ku leeyahay waryaha markaasuu waliba ninka marka wargaaladan iyo markay hindidan wax dhacaan marka Starbucks kula soo fariisana ninbaa wuxuu ku leeyahay waxaan adiga America waa iska joogtaano fiir aan account-kayga 1.5 million ay ugu jiro reer baadiye waa ujeed tooro baadiye ah waa ka warrama markaasaan leedahay aniga niyo marka timaha la jaraayo ninka maafiyada la yiri maafiyada la qabana madaxa saasa ka siisa aan dhah aniga laakiin madaxay waa taagtaa tartiib aan leegu jaraa marka adiga 1.5 kan birito adoo cunin xabsi lagu geynaa markaas lacagta had aad bixiso dadka aadan aqoonin oo ku raaxaysanays aan lagu leeyahay lacagtii oo dhan soo celi ka bacdi xabsi lagu gelinaa laakiin aniga marka waxaan wax dhibaatana haysato waaye typically kuwa waddanka dhacaayo Soomaaliya joogan meel walba oo maamul ka jiro oo Afrikaanka horta Afrikaanka oo dhan wadamada ay dhacaan not only Soomaaliya kaliya waxaa arkaysaa the most millionaires in Africa that it's stolen money waa marka Uhuru Kenyatta marka aragtid lacagta haysto wax marka aragtid markina waad yaabaysaa waddan walbaba Asia saasoo kale Azerbaijan boqorka xukuma lacagta haysto waad yaabaysaa
kuwa carabta lacagta haysa waa shacabka lacagtiisoo la dhacay waay adduunkoo dhan waa la dhacaa laakiin dadka waxbay u qabtaan annaga keena nin un-ka maalin arka wuxuu dhahay ninka oo caddaanka wuxuu ku xadow dhahay 300 milyan oo qaatoo dhahay ka soomaaliga ah oo og oo ninka inuu saxiixayo 5 milyan keliya la siiyo dhahay that's his own money magaca waddankiisa lagu qaadanaa he doesn't have guts to say that you know what thing haddaad 300 qaadanays I'm not gonna take 5 million fuck it you know waxaan rabaa aniga kulligood let it blow it haddii kale soo maaha feer noogu qayb aniga 200 isii adiga inaad qaadatid waa 80 milyan waa bullshit anaa magacay ku qaadanaysaa inuu dhaha waa ma dhihi kariyo he can't say that marka waxaan nahay ummad oo sida doona loo isticmaali karaa nahay marka ilma adeeryaalow ninbaa waxaa layidhi maxaan qaban karnaa ummad qiiraysanaa nahay markaanoo kale markaan noqono aan arko oo soomaalida meel isku soo bax calanka lulaayaan markii la yidhahdo maalintii xornimada waaye maalintii waddanka waa soomaaliya ha noolaato madaxweyne la doorto markaan arko waxaan dhahaa ummaddan waa wada qiiraysan yihiin wallaahi ilmahasi wallaahiga haddii waddanka loo dhiibi lahay haddaan aniga awood lahaan lahay oo ilaahay awood isiin lahaa intasay wallaahi oo adduunka yurub iyo ameerika joogta intaan wado ayaan odayaasha iyo waxa meesha joogo dhan aan dhihi lahaa maarkino waxaan dhihi lahaa kulligood ha la wada xareeyo waa ka daacadsan yihiin haddaad tirahdid wax u sheegtid white mark sida loola dhiilgara yaqaanin projectiga how much is gonna cost this much where is the money going all this waa la xisaabtami lahay niman dhahayo ninka caddaanka intuu iska yimaado dhahay project yaa magaciidu kusoo qaadan stamp it here sign it waa la seexayan kulligood how much am I getting I'll tell you after you sign it okay shut up al dhaha ninka lama tusinayo hataa lacagta lagu qaata ma garan lacagta lagu qaata xataa lama tusinayo marka waxaan nahay ummad oo baaba'day really generations to generations aan baaba'nay marka aniga my best idea waxay tahay say wallaahiga waddanka aan geyno allah noo xafido say wallaahiga way ka fiican yihiin nin kastoo soomaaliya la geeya tuuganimaa lagu qasbaa eventually you'll be forced inaad ka naqatid qaybtaas waxa dhacayso markaas waxaad arkaysaa oglo wax qaadanaya manka wax qaadanaya macallinkii aniga iliibaa marka dambe final waxaa leenahay maxamed niyo dadkaan lacaga qaadanaya why are we bullshitting you know why are we trying to kill ourselves you know go on with the game let's play the game annagan dhinacan ka raacaynaa let's move on marka wixii dhana waxay noqotay circle wareegaya no matter what war wadaadka ugu quraanka akhrinayo haddii la geeyo oo meesha la geeyo oo la yidhaahdo arrintan dacwo ka soo saar oo adigana xukun ninka ugu fiican soomaaliya haddii la geeyo corruptiona la gelinaa because basic wixii hoosoo dhanaa corruption ku dhisanbo wixii hoosoo dhan baa corruption ku dhisan marka qof kastoo soomaali wuxuu ku fikiraa meel walbuu joogo hadda way tagtay soomaali meel walbay tagtay nin etoobiyaan wuxuu ugu dhahay soomaalida ma jeclo etoobiyaanka shaqaday qabtaan in etoobiya maxaa dhacan dhahay dowladda marka u shaqeeya ninka soomaaliga lacaguu rabaa ku leeyahay hadduu dowladda ah meel lacag ugu soo dhacay iskiliyo qaadana annagan meelo hoose iska qaadana ku leeyahay marka mentalitiga dhan kulligeen way noogu jirtaa waa dhiig soomaaliga dhan uu leeyahay marka waxaan u dhalan naturally qofka inuu 5 days ku faa'iido rabaa oo rich oo ku noqdo marka waxaan se looga baxaa waa su'aasha marka dad waxaan nahay oo waddan ilaahay siiyey waryaa qofka soomaaliga hadduu badda tago malaaygeena badda bannaanka iska yaalaa dooman kartaa haldhanaa laga hadlayo oo barnaamij laga keenay doonta qofka averageka ah uu soo gadan karo the cheapest one adduunka malaayga heer waxay gaareen inay diib tagaan ay ka raadsadaan markaas way ka dhammaatay waxaan nahay baddii cas badda oo isheg waxaa imaanayso hindiya badda cas meesha iska qabsadaan fiiri hoosne indian ocean waxaan ku jirnaa dhulka ugu hadda malaayada adduunka ugu qaalisan waxaa laga helaa baddaas laas qoray ilaa ay bari ilaa ay hobyo ku imaaw waxaa laga helaa tuuna ugu qaalisan tuunaa laga helaa red snapperka laga helaa malaay guduud ay ku leeyihin soomaaliya ani malaayga ugu jeclaa inaan cuno malaay guduud waa waxaa laga helaa dhinacaan laga helaa kismaayo lagama helo dhinacan kale wixii xagga ka jiro oo warshiiq wixii xagga ka jira laga helaa malaay guduuda la yidhahda war wuxuu ilaahay na siiyey dhul qani ah baddeenna waxaa laga helaa libax badeedka ayay indhayarto dhan raadisaa dhegihiisay raadisaa libax badeedka lagu sheegayo oo lagu dhahayo ama u taqaanid sharkska loo yaqaano
وصومالي ساس ugu buuxa maxaa dhacay weatherka waay way ku raaxaystaan weatherka qabow ma ah weather ilaahay wuxuu homelesska xataa ma dhimanayo war annaga waxa u soo cararayna meel Chicago iyo Minnesota homelesska u dhimanayo bal fiir ilaahay waa noo naxariist islaam uu naga dhigay dhul fiican uu nagu abuuray we still waxaan rabnaa inaan wadan aan ku dhimanayno meeqa Soomaaliya baraf ku dhimatay haddii caaw tiri liirada waa tirin karaa gabar Soomaaliyeed ilaa hadda lafaheeda qof sheegtaa la la'yahay waxaa laga helay ishek Lewis County laga helay maalin walba waxaan dhahaa u soo geli Soomaalida Lewis County laga helay oo ku taalo ishek Seattle ku taala miya waxaan dhahaa Washington ku taala Lewis County Vancouver may ka timid gabadha ma Seattle ilaa hadda they still have their body Lewis County haddaad gelisid waxaa arkaysaa waa ku shiga qofka soo egyahay gabar Soomaaliyeed waa marka wixii barafkii qabowgii ku wada dhinteen adduunka oo dhan marka intee aadna annaga waddanna ma haysano dadna ma haysano waddankaana waxaan ka naqana tuugo meel walba tuugaan kana Yurub markaa gelisid markaa computerka gelisid Soomaali lagu leeyahay waa ma tagayaan dadka Germany Syrianka waxbay ka samaysteen business dentalka ugu badan oo waxa lagu leeyahay the cheapest dental hadda ee Germanka waxay ku leeyihiin dadkan hadda ogaan lahayn waa soo qaadan lahayn mar hore most productive society oo Germany ah oo la dhahay milyan kala kaansada familkiina kaansada la dhaha sponsor loo ogol Soomaaliga wuxuu rabaa ayr inuu ka qaato Germany Sweden ka qaato Norway ka qaato mara tagay Ingiriiska wariyo meeshan joog sharci sameeyso mid kamid oo ila socday meeshii iska dhiibay sharci oo ka sameysana hadda Ingiriiska ma tagi kariyo ani Ingiriiska waa taga hadii faray waa ka qaaday dhaanata am okay war hal meel kugu filan war maanta dhan inta u socona qurbi joogina saas ah ku wadanka xun imaadana faataxa ina ilaahay inaan barino waa wallah anigu waa arkay wadanka waa tagay ninka la fadhiisanays nin waxa arkaysa budgetkiisa oo yahay 5,000 habeenkii ayuu wuxuu ku qaylayaa 2,500 uu ku leeyahay wariya xal meeqa iga baxda ma taqaana markuu qaylo saas inuu madax kor u taa uu leeyahay macallin haye gabar yar qurux badan wallahi ta isku tartaro 2,500 uu ku leeyahay warisi budgetkaaga meeqa qaata aniga lacagta qaata da sheeg waa yaabad ani 2,500 ii qoran ninkaas tuugmaya mise tuugma ilaahan kugu dhashay maxamedow waxaas wadanka wada taliy meel walba Soomaaliya marka hal xaraan nirka xalaal ma dhalayso marka waa ku dheeraaday wallahi waa ku qiirooda arintan waa in salaam ya shidan oo long time macallin ma si wanaagsan baa wada shay abti ma ku darsanaysaa mise ya Subayr Munir cid ku darsanaysaa ku darsato hadii kale kelmad baa kugu darsanaya macallinka horta macallin horta saa waxa uu kala dhigtay saaxiib long time no see you you know that marka yani de waxaalaha ka hadashay waa wax jiro oo xaqiiqa oo run ah maantay ilaahay baan kugu dhaarshay ma aragtay nin madaxweyne ka dambeeyay maxamed siyaad barre inta ka dambeeyso dhan dhac iyo bob iyo wadankii loo dhacayo waa aragnay laakiin cid sheegaysa ma lahayn banaanka la isugu imaaneen kaliya waxa la isugu tagayay xafiisyo oo mataqaanaa iska leeyihiin dadkan reerka taqaani kuleba aniga ma sheegay dadka way fahmi karaan macallinka way fahmayay marka Soomaaliya xaquuqda haysato waxay tahay mid baa intuu ka duulo Mareykanka oo Canada iska dhiibaya Canada intuu ka duulo haddana wuxuu iska dhiibaya Ingiriiska intuu ka duulo haddana wuxuu iska dhiibaya Norway Sweden Denmark nobody knows cid og ma laha imse passport oo taa marka passportadii ma la isku haystaba laakiin waxa la isku haystaa dhaqaalaha qofka bini'aadamka la isku haystaa dhaqaalaha xagee ka imaaday bal waxa ii sheegtaa يعني هذا مدحوينها أو هذا يعني وقت يصير ما هذا وكلته رأس مال كان حولهان وحر هيك كاني ودريميسا كي هور حاجة حكاني كي كسي هوري كي كدم بي حاجة كاني وحنا ضن صومها أبابلي أو مركل وضحايو يعرض الصومالي والصومالي والروم والصومالي لكن صومالي اسكو من نحرسته بينكم الشيء والله صومالي اسكو من نحرسته waxaa dhahaa ninkii tun weyn unba wax cuni karo marka Soomaalida waa intaas way laakiin ereyga barnaamijka kaliya oo ka jira adduunyada waxay tahay sababta adiga Ingiriis isaga dhiibo weysi asaga saaxiibka isaga dhiibay macallow yacni waxba fahansanid adiga waxba hormar adiga hordhaca ku yaalay riwaayad ku taalay bishas riwaayada ka soo gudubtay
يعني دي ودك أوصل لابتي يعني دي United States of America أما some like Canada Australia مركز جوكتد لا نيوزيلاند حتى نيوزيلاند والوداتي سيد هذا الود هذا يعني دي يوروب ودك الله أيرلاند أيرشكا واجوجين وحدين إن مسوق الشغل الآن iyo ka imaado meel kasta cidna soo gali karta malaha sababtoo ah dadkii Irishku waa laba u kala jiraan kuwii gaajaysanaa oo mana gaajaysanay cayar bay qaataan oo aragtay ciyaarkooda waa qamarjiyaal waa balaayo waa dhibadeen ingiriiskaas ay habeenimo dhagaxaan isku tuturaan xaduuday leeyihiin waa isku dhageeyeen okay Soomaaliya ma isku dhagan tahay iskuma dhagan sababta isugu dhigay Soomaaliya taqaana waa naaska la isnuujinaya hooyo naaskaaga ya marka waa ka baxay macallinkana waxba si ahaa raal noqda معلم كلمة بقى سنة السلام عليكم ما لما كلمة أكيد واجسي منير وودع لما كلمة أكيد واجسي كل شيء معلم أعتري وهذا باتري هي بد باتري أرتاني جنين دان يرى هاي بد واكش الشقي هذا كل شيء بد كل شيء كنسا كل شيء كنت مركب كل شيء وعن قال أنا يقول لبيت من جيران قال كودي وعن كل شيء هل سنة وحاسوستا بدأ دون بصارنا دون تسعوك الجوشتا Soomaaliya to Yemen oo kalluunka ila ganacsiga ugu badan xaggaas aan lahayn markay nabadii jirtay moogta Yemen ay haysatay marka waxa jiray doonta budget ahaan lacag qarniga soo saari jirtay ganacsatada la shaqaalayaasha yar waxa la siin jiray mushaarkooda okay kalluunka ugu badan oo laga saaro waxa weeye waa tuunada tabadiin mid dhahaan tuunada oo tabadiinta loo yaqaan taraaqad oo kalluun cadka tabadiintan waa kalluun guduudka iyo kalluun qareed kalluunka dhan qarka ku nool okay adduunka marka u foofto waxa jiro kalluun la dhaho seafood oo sanaanida kamida argostada kamida waxyaalahaas oo dhan waxa kamida baashan la dhaho sanuuna ama magac kale loo yaqaan idon oo yar oo la sameeyo adduunka qaaliga ka taan annaga xageena qiimo kama leh waxa la siiyaa 60 cent iyo 40 cent ana ka aha nin qoro wallahi anoo 12 jir inaan been sheegay kalmad beenana ku daray reality markaan nisho okay marka ninka da'da yar oo dalka joogo markuu yar yahay wuxuu ku fikirayaa han ah inuu wax qabsado oo badda galo tan labaad wadaadkan ka hadlay oo badana nimco walba way taallaa oo waa ka shaqeey waa arkay war taas oo kugu raaxsanay oo ana arkay anoo daayar hal sano lay ku jiray sanadkii markaa ku jiray marka meesha arkay inaan waxba ka socon oo waxbarashada ugu laabto waa mar waxbarashadiida waagaas okay mar labaad wadaadka waxa marqaatu u ahaa nin intuu wadaad u tagay naag inta wadaad u tagtay saas uu ninkeegii uu ka furmo yiri daliil ma eegin wax ma eegin حتى متقنا ودادada qaar qofka inaan gaalaysiiso waa khalad inaan mintaqana aad tiraahdo waa ka furmo waa khalad ninkaas nin askari ah intuu sheekhu u tagay uu naagtiisa gacanta soo qabsaday oo yiri sheekhu wallahi waa ku dilay naagteeda waa qabaa naga dhaxbax ninkii naagtii Allah naxariis ninka uu dhintay waa aqaana intaas oo ciyaal gadaal isku dhaleen iyagoo isqabu ka dhintay marka qaar wadaadadu nin kitaab markuu laba aayadood soo barto intuu yimaado oo magaalo yimaado oo dhaho ana ninka dhaxaysinay maaha culimadu waxa weeye hadda sheekh Mustafa kale iyo dadka cilmiga leh hadii loo tago su'aasha la weydiiyo waxbay ku sharaxayaan waxbay ku fadwoonayaan waxbay ku leeyihiin waa wax macquul ah dalkeena marka reality marka isku sheegno saddex shay weyn haysataa waa xaqiiqda markii laga hadlo oo dadkeena dhan anigu hor su'aasha qabo xitaa odayaasha neesto waayo aan maanta nin dhalinyaro ahay waxaan rabaa inaan nolol la halgamo mustaqbal samaysto mustaqbalkayga ma arko dalkayga hadda joogana odaygiiba ay afduubayaan haddaan qurbihi tagana odaygiiba iga horeeyo wuxuu leeyahay shantii dhalinyarada intuu goon u la baxay kuwaas cadowga nagu yihiin kuwana reer kale waaye xataa garoomada kubadda loo kala dheelaa runta markii laga hadlo ilaa Mareykanka meel walba adoo garoon ku jira lugaa nin reer hebel ay yimaadeen kii garoonka xaq u lahaa afarteen oo isleena ka soo baxday xagga fariiso aad maxaa markuu qasbanaanaysaa in afarta reer hebel doonato oo aad kubadda la ciyaarto oo aad ma garatay oo maqaaxiyaha la fariisato oo miiska fadhiyaan la fadhido والله وبالله والله ويقول عادي نين دهايو dadkaas cadow way nagu yiin markaas aan ku yiri maxaa u daba socotaa markaas aan ku yiri hadii cadow kugu yiin adeeg ku taala laakiin anaga waxba naga dhaxeeyay xawada anna waxba wada cunaa ehel baan nahay baan ku yiri adeeg ku taala baan ku yiri hadii adiga kugu jirto waa nin iga weyn oo anigana dhali karo iska daani inuu dhalay ilaa waalidkaygu ka sii weyn yahay marka ninka saa dhahayo marka dhalinyarada waxa loo baahan yahay oo jilka maanta jiro oo da'doodu ay 40 ilaa iyo ay ka yartahay inay xisaabtamaan ay ku fikiraan ilaa maanta wuxuu ka burburay ninka 40 jiro waagu dalka burburay maanta wuxuu jiray waa nin qax ku orday aan aqligiisa kala bixin 40 jirka maanta joogo
marka reality haddii la isku sheegayo oo xaqiiqda la isku sheegayo kow waa caro ilaahay baan haysato labo odagan oo qurbo ilaa iyo dalkii daba socdo odayaasha saddex ninkan oo iska dhigaya siyaasiga ama sheekhan iska dhigaya sheekha oo isticmaalayo shaarkii diinta ama shaarkii aqoonta isticmaalayo nin professor ah lagu leeyahay waa professor marka macalinka eray ah wadankeena wax ma leeyahay haa wuu leeyahay anigoo 12 jira baa dalkayga waxaan ka samaystay oo ganacsi ka sameeyay oo ka soo baxay badda baa ganacsi ka sameeyay dukaan waa ka shaqaystay waxbaan kala soo baxay markaan kala soo baxay kan igu dhow oo ninkii igu dhawaa wuxuu igu yiri adeerow hay da'daadu meeqa way 13 sano jira aan ku yiri markaasuu igu yiri macquul maaha gabadheedii waxay jirtaa 18 sano niyadda saa u shaqeynayso ma shaqeyso way dhihi kari waayo ma sha Allah erayga ugu horeeya ma sha Allah dadkeenu ma yaqaanin runta markii la isku sheego way dhihi kari waayay maxay adeerow ilaahay horaa ku siistay maalintii eraygaas ay dhowr qof weydiisay nolosheeda dhan way burburtay horta markaa ku sheego xaqiiqda badanana dadka saas ku jiraan marka reality marka waxay tahay hadda qofka South Africa soo qoray ma garto South Africa Kenya iyo South Africa waxa yaalo waxa weeye South Africa waa aragtay nin baa walaalkiis laba walaalo oo dukaan kale leh wuxuu leeyahay kan say ganacsiga ka horeeyay niman madow lacag soo siinaya kadib u dilay Mareykanka waxa ka jiro dadka inta u tagaan dadkan waxaanay sameeyaan waxaana u furan luuqana wax ku leeyihiin war walaalka haduu luuq wax ka furtay oo Ilaahay u barakeeyay iska daa xaqiiqda marka isku sheegno marka reality-ga inaan dib iskugu laabano waxay tahay kow inaan Ilaahay u laabano odayaasha la iska qabto intaas weey ninkii 40 ka weyn in la dhowniyo adeer dalkan waxba kuma lihin inta u soo shaqeyn karto u soo shaqeysay iska fariiso dalkan jiilkii bedelna tan ugu xun aan la yaabay tahay wallahi dal shisheey intaan aanu joogo baan wuxuu igu yiri adiga wadan ma lihin maxaa la cararaysaa su'aasha maxaa ku jawaabi kartaa waayo meel walba daadsannahay ciyaalkeennii meel walba dad waxa arkaysaa lacag qaato haddana wixii la qaybinayo macaawino iyo meel wax laga qaybinayo saf ugu jiro imagine dadkan aad macaawinada ka sugayso ama wax ka sugayso waa ka qaniisan tahay fiiri beereen markay soo go'aan dalalka shisheeye waxay keenaan macaawino maxaa la diidayaa ganacsiga dadkii dhan yartaha oo beeraha ka shaqeynaya sanadka dhan in waxooda la iibsan markaas bakhaaradu bay ku baarayaan waxa loo keenayaa waa galey iyo wax loo yaqaan buskudiil iyo haruur inta badalkeena uu ka bixi kara galey iyo haruurkii iyo inta ka badanba sokor baa noo bixisay wax walba noo baxay qasabkii sokorta laga sameeyay yaanyadii everything reality marka isku sheegno jiilka maanta joogo boqolkiiba 10 ama boqolkiiba 20 wax way fahansan yihiin laakiin ilaa hadda waxay ka socon laayihiin waxa weeye odayaasha runta markii la isku sheego marka dalkeena waxa haysto waa odayaasha iyo alla ka cabsi aan jirin hadda abtiliba hadda su'aal baa weydiin ku yar meel abaara markii qofka lagu dejiyo markii la rarayo xilliga siyad bar rag baa noo tashtay markii tashanay xilliyo siyad bar iska dejin xilka muddo hay okay aan iska dejinay xagee u guurnaa qofna isma weydiin yaa maxaa marka systemkan hadda ka guurno ilaa ninkan ilaahay u naxariistay waqti walaa uu dhimanaa systemkiisu uu taginaa laakiin lama dhihin xagee u guurnaa oo xagee aadnaa markuu ninkan aan iska dejino sidee isku nimanaa nin walba waa la soo orday hubba la qaatay caadifad baayse waa la guuray maanta xagee joognaa ina adduunyada inta wadan ay tahay qof Soomaali lagama weynayo hatta dayax gacmeedka hadii la fiiriyo hatta Soomaali waa laga helayaa sheekh dhaaya jiray waa laga helayaa qofkaas xagee u socda marka reality-ga marka isku sheegno jiilka maanta aqliga kala furaan qaar baa xajir dalal shisheeye joogo dalal Asia joogo Afrikadan joogo meherada iska fadhiyo isagoo bil haysan waxba haysan cunto haysan wuxuu ka hadlaa inta meherto fariisto isoo koobdada jooge haya rallo dalkeena waxa joogo kuleeyahay isagoo waxba haysan kuleeyahay aniga reer hebel baa haysan isagoo koob shax shuban kari oo nin buu difaacaya waninka aad difaacayso ilmihiisa qurbay joogaan way nool yahay xafiis buu fadhiyaa adiga hooyada wax kale ka fikirin ilmaha xataa ka fikirin hooyadaada caanaha gaddo ama yaanyada gaddo ee kugu soo korisay ee qoraxda fadhido ee qabowga fadhida habeenkii ila magaalooyinka waaweyn Soomaaliya waa ognahay taas ka fikir sida hooyada nolol raaxo leh ee cilaan u marsaneed ee raaxasa u jibsaneed taas ka fikirniyo ee qof walba saasaan leeyahay tahay Munir hibo soo dhawow Munir iyo super idinka ku xigeen kuleyba kamid ah soo bax ku soo dhawow السلام يا كل جيل مركور السلام عليكم ما بس السلام عليكم كسر